Saamaynta heesaha ayuu maanta mowduuceena ku saabsan yahay. Hal heesa statuska Facebook ama WhatsApp soo dhigtid waxay kugu kalifi kartaa malaayiin dambi ah ama buuro dambi ah. Qaybtani waa qaybtii saddexaad taxanaheeni halaag. Inta aan mowduuceena u gudagelin, fadlan muuqaalka like inoo saar. Sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Haddii gabar la amaanayo, haddii shay la xayeysiinayo, haddii aroos la dhigayo, haddii soo dhaweyn la sameynayo, haddii shir siyaasadeed la qabanayo, iyo wax walba oo maanta la qabanayo, waxaa khasab ah in hees ama muusika la daaro. Waa casriga aan maanta joognee. 10 sano ka hor haddii aad noolayd gadaal u raac. Dadka heesaha dhageysan jira way yaraayeen. Qof hees dhageysanaya haddii la arko waa lagu qaylin jiray, waxaa la dhihi jiray war heesta iska dami, waa la canaanan jiray. Oo kaliya muusikada BBC ay ku soo gasho ayaa dadku la qabsadeen, laakiin heesaha aad baa loo nacbaa waagii hore. 2010kii xilli fogba ma ahayn. Adigu qiyaastii meelaha 11 jir baan ahaa. Haddii guriga hees la soo geliyo, hooyo iyo aabe aad bay u xanaaqi jireen. Ilaa maanta waa saa gurigeen mamnuuc buu ka yahay heesaha. Haddaba maanta xaalka dhageysiga heesaha halkee maraya? Sida aan muuqaalka ku bilaabay, shay walba oo la sameynayo muusika ama hees baa la dul saarayaa. Xitaa waxaan arkay xafladda qalinjibin oo hees laga shidaayo. Waan la yaabay wallaahi. Waxaan isweydiiyey qofkan qalinjibinaya soo qof aqoon leh ma ahan. Maxaa hees iyo waxa u keenay? Baraha bulshada iyada ugu daran, ha noqoto Facebook, WhatsApp, TikTok iyo wixii la mid ah. Haddii cod la duubayo, muusika ha lagu qurxiyo baa la leeyahay. Heer waxa ay maanta heesuhu marayaan iyo muusikada in qurux loo arko. Waa sida uu zamanku isku bedelaye. Heestu xaaraan ma ahan, laakiin waxa heesta xaaraanta ka dhigayo waxa weeye waa muusikada. Nabigu waa mamnuucay muusikada, laakiin hees haddii la qaado, heeso howleedyaa jira marka geela loo heesayo, lo'da iyo ariga iyo waxaas dambi ma ahan oo aan muusikada lahayn. Laakiin wax walba oo muusika la dul saaro, xitaa haddii nabiga la amaanayo oo muusika la dul saaro, xaaraan bay noqonaysaa. Marmarka qaar cod aan muusika lahayn, codka kaliya waxaa dhici karta inuu dambi noqdo. Waayo tusaale, khamradu waa xalaal qof hadduu ku heesayo oo aan heestaasi muusika la socon, xaaraan bay noqonaysaa. Waayo erey ahaan bay khalad u tahay. Micnihii hadalkeena caadiga wixii xaaraanta ka ahaa, xaaraan bay noqonaysaa. Ama muusika saar ama ha saaren. Laakiin heeso macquul ah oo bilaa dambi ah baa jira oo aan wax muusika aan lahayn. Culimadu waxay sheegaan badanaa qofka heesaha dhageysta khaatimo xumo ayuu ku dhintaa. Waayo qofkan heesaha dhageysanaya Ilaahay buu carag gelinayaa. Adiga i daawanaya tusaale, hees ama muusiko ayaad statuskaaga WhatsApp soo dhigtay. Kaba soo qaad inay ku daawatay 100 qof. 100kaas qof heesta statuska aad soo dhigtay daawatay, dambigooda waa lagu qorayaa iyo kii adiga ku daawatay. 100ka qof waxaa dhici karta 30 qof inay heesta la degto, statuska kala degto oo iyaga dib u soo dhigaan statuskooda. Kaba soo qaad 30ka qof haddii min 100 qof ay u daawato, 30 100 ku dhufo, intee soo baxaysa? Waxay noqonaysaa 3000. 3000 kun ka mid ah ama 500 oo ka mid ah haddii intay la degaan statuskooda oo haddana dib u soo dhigaan, kumanaan bay gaaraysaa, malaayiin bay gaaraysaa. Malaayiinta dambiga ah adiga u sabab ah. Waa hal heesa aad statuska soo dhigtay ayaa waxa uu kugu sababi karaa in malaayiin ama buuro dambi ah aad qiyaamaha la kulantid. Ka waran maalintii intee soo dhigtaa 3 heesood iyo 4 iyo wixii la mid ah. Sanadkii intee soo dhigtaa, bishii intee soo dhigtaa, kaba sii daranba. Dambigu waa ka sii weynaanaya markaas. Dambigeeni iyo xumaanteeni caadiga ahaa ayaan meela geeno garan weynay. Ma dambi kale ayaan qaadi karnaa iyo dad heese ay daawadeen. Adiga u sabab ah. Meesha aad heesta ka faafisay, haddii aad quraan ka faafin lahayd ama wax khayr ah, ajar baa kuu qormi lahaa oo buuro ajar ah baa heli lahayd. Dadka heesaha statuska soo dhigaya waxaaba ka daran dadka TikTok soo gelinaya oo kumanaan kun oo qof ay daawanayso. Kuwa waxaa ka sii daran fanaaniinta malaayiin qof heesahooda ay daawanayaan. Dadku way kala duwan yihiin, way kala roon yihiin. Qof waxaa jira heesaha dhageysta laakiin aan meelaha soo dhigin
Facebook, TikTok iyo WhatsApp aan soo dhigin, laakiin dhageysta. Qofkaas wuxuu dhaamaa kan heesaha meelaha soo dhiga, waayo kan dambiga isaga ku kooban tahay, isaga heesaha dhageysta dambigiisa isaga kaliya ku kooban tahay. laakiin haddii TikTok uu soo geliyo ay 100,000 u daawato, 100,000 oo dambiya buu helayaa, marka dambigii baa kusii badanaya. Nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiraahday, ummadayda oo dhammaananta qiyaamo waa la cafinayaa ilaa dadka dambigooda banaanka keenay mooyaane. Tusaale waxaa ka mid ah dadka heesaha staaska soo dhiga ama Facebook iyo TikTok iyo wixii la mid ah soo dhiga, waayo xumaantii bay banaanka keeneen. hadhow taasi waxay u aqoonsanaysaa inuu Ilaahay maalinta qiyaamo u naxariisan waayo. Heesaha kaliya ma ahan, dad waxaa jira qabiilada caaya oo qabiilada inta isku diraaya, dadkaasina waa la mid, xumaantii ayay banaanka keeneen. TikTok waxaa ka buuxa gabdho Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo hees intay isdul saaraan ku jaasaya. gabdhahaas 3 dambi oo waaweyn bay galeen. 1 hees oo dambi ah bay ku dul jaasayaan. 2 iyadoo qaawan ama surkeeda qaawiya ay wixii la mid ah. 3 way jaasaysaa. inay gabar jaasto waa wax khalad ah, diinteenuna ma ogola. waxay gashay gabadha 3 dambi oo mid kasta toobadkeen u baahan. heesaha ay kumanaanka qof ay daawatay, marka dhimatid ma inay halka ku istaagayso baad moodo dambigiisa? maya, way sii soconaysaa adoo waliba qabriga ku jira. markii la sii daawado oo la sii faafiyo, way sii soconaysaa oo dambi baa kuu soconaya. waxaa dhici karta adigoo qabriga janno iyo wanaag kula kulmay in markay heestaadii faafto ay ajarkaagii ka badato. waxaa dhici karta in qabriga dhexdiisa aad dhib kula kulan oo jannada lagaa soo saaro, waayo heestii baa sii shaqaynaysa. meeshii la rabo inuu ajar kaaga shaqaysmo, xumaan baa kaaga shaqaysmaysa. haddii quraan iyo khayr iyo wacdi aad soo gelinaysidna, markaa dhimatid wacdiga haddii la sii daawado, in badan la daawado, wanaag iyo khayr baa qabriga kula kulmaysaa. oo waxaa dhici karta adigoo cadaabul qabri ku jira inuu Ilaahay kuu naxariisto, uu janno kaaga dhigo, maadaama wanaagaagii ay kuu sii shaqaysmayaan. labada midkii kuu fiican adaa yaqaana ka dooran lahayd. taxanaheena halaag mowduuca afraad ee aan soo galin doono waxa weeye isqaawinta dumarkeena muslimaadka ahaa oo xijaabkii iska tuuray. intaas ayuu mowduuceena ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.